waxaan daawadayaal ku soo dhawaada dood gaar oo aanu ka sameynay dood gaar ah oo aanu ku eegayno waxa ka soo baxay shirka maalgashiga ee 3 maalmood ka socday magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxa doodan igala qayb galaya wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan sidoo kale Cali Xaaji Warsame siyaasi ahna wasiirkii hore waxbarashada Puntland sidoo kale horey u noqday maamulaha shirkadda Golis waxa isaguna dooda nagu weheliya Cali Bashiir Barre oo ah ganacsatada shirkani uga timid Zambia wasiir waxa warbixin kooban in ka siisaa shirkan maalgashiga Puntland iyo faa'iidooyinka ugu jira Puntland sallallahu alayhi wasallam faa'iidooyinka ugu jira dawladda Puntland shirka kan runtii waa faa'iidooyin badan oo aan la soo koobi karin waa faa'iido aan isleeyahay Puntland kaliya kuma koobnaan doonto laakiin guud ahaan dalka Soomaaliya bay faa'iido u tahay geeska Afrika bay faa'iido u tahay geesinimo iyo hawlkarnimo iyo hawshii halkaas ka dhacday runtii waxay ahayd 3 maalmood la soo dhaafay oo shirkaasi u socday waxaan la filanayn muddadii koobnayd oo shirkaas qabanqaabadiisu ay socotay aniga kulli waxay ila noqotay la yaab sidii wixii halka dadkii isugu yimi wixii ka soo baxay iyo barnaamijkaas sidoo u hirgalay dawladda Puntland hadda dawlad cusub waxay hirgelisay shirkaas aad iyo aad ka u quruxda badan marka expectation-ka dadku ay filan karaan runtii iyo outcome-kii wixii shirkaas ka soo baxay waxay noqdeen labaduba wax maaragtay aad loogu farxo oo caalamka dhan maaragtay markaan baraha bulshada iyo dadka ka falcelinaya sidii arrinkaas u dhacay waxay ahayd wax la yaab leh oo aan la filanayn runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa shirkaas iyo guuli laga gaaray wasiir hal iyo labo inuu ka tilmaam fursadaha ugu muhiimsan ee muddadii uu shirkan socday ka soo baxay fursadaha ugu muhiimsan oo runtii aan isleeyahay way ka soo baxeen waxa weeyaan fursadaha maalgashiga dadkii ka soo qayb galay uga yimi qaaradaha kala duwan adduunka waxay arkeen Puntland inay diyaar u tahayna runtii meel la maal gashan karo lacag aad u fara badan baa halkaas lagu yaboohay oo yaboohid maahe lagu shirkaduhu rabaan inay dalka kan ku maalgeliyaan waxay muujisay awoodda dawladda Puntland ay u leedahay inay shirkaana qabato isla markaana ka soo qayb galayaashii iyo dadkii investorska ahaa ay ku qanceen dalka kan inay wax gashadaan marka faa'iidadaasi faa'iido weyn bay ahayd faa'iidada kale ee aan isleeyahay shirka kan waxa ka soo baxay waxay ahayd in la aaminay dalka kan aaminaad ay muuqatay inuu yahay dal nabadgelyo ah dal lagu kalsoonaan karo dad capacity iyo awood u leh inay shir noocaas qaban karaan waxay ahayd faa'iidadii labaad ee ka soo baxday shirkaas waxaan u jeensanayaa siyaasi Cali fursadahaasi ma u muuqan karaan kuwo la maal gashan karo ay dawladdu soo bandhigtay بسم الله الرحمن الرحيم aad baan u salaamay saaxiibadayda wasiir Cabdullaahi iyo Cali Barre runtii waxay ahaa sida wasiirku sheegay baan la waafaqsanahay kulan aad iyo aad loo agaasimay looga soo qayb galay dalka dibadiisa iyo gudihiisa lagu soo bandhigay fursadaha Puntland ka banaan ee la maal gashan karo iyo waliba dadkii fursadahaas buuxin lahaa waa shirka ugu horeeyay oo meel Soomaaliya kamid ah ee laga qabtay waxaan aaminsanahay Puntland dawlad iyo shacabba inay u istaagtay inuu shirkaasi uu najaxo haday noqon lahayd qaabka loo qabtay doodaha la keenay daraasaadka laga soo gudbiyay dadka lagu casumay iyo dadka ka soo qayb galayaba waxaan qabaa inay ahayd fursad aad iyo aad muhiim u ah waxaan ku qanacsanahay halka wixii laga ballan qaaday haday noqoto isbarasho shaqadu isbartaan iyo haday noqoto maalgelinba inay intuba ay xaqiiqoobi doonaan oo Puntland mar dhow laga arki doono thimaartii raadkii conference-gaas lagu qabtay guul baan u rajaynayaa dawladda runtii inay waqti yar iyadoo jirtay arintaas u xilqaantay aad u maasantahay ganacsada Cali fursadahaasi idinkama idin muuqdeen oo ma noqdeen kuwa aad ku qanacdaan maalgashigooda runtii waa saas sheegtay weeye fursadahaasi waan ku qanacnay ujeedaduna waxay ahayd forum marka la leeyahay isku soo bandhig dadkii la isku soo jafo weeye qof kasta waxba ka gooxayay damacan waan ugu jiray anigu 5 sano ka hor baa igu jiray hawshaani inaan hawl ka qabto halkan laakiin 5 sano wax ii yeera ma arag wax ii gacan haadiya marka forumkan waa gacan haadin runtii rag kale oo badan oo maanta aan halkan joogin baa iyaguna ka faa'iideysan doona oo ay fartiin u diraysaa waana maasanta mudane wasiir
waa maxay caqabadaha maalgashiga Puntland ganacsatada ka hor taagan oo idin muuqday intii muddada shirku wallahi waxaan isleeyahay hadda marka la eego outcome-kii wixii shirka ka soo baxay inaan caqabad muuqan haddii dadku ay baqayeen markii hore oo islahayn caqabadaha jiri doona caqabado sharci baa jiri doona ama caqabado kale oo baqdin baa jiri doonta ama systemkan bankinka iyo qaabka ganacsiga uu ku socdaba carqalada idin kulmaysa waxaas oo dhan waxay muujisay runtii inay meesha ka baxeen marka anigu waxaan isleeyahay wax caqabada ah oo dadka waddanka raba inay maal gashadaan oo aan uga baqayna haba yaraatee ma jirto wax caqabada ah anigu ma tabayo mana isleeyahay caqabadaha soo baxay haba yaraatee wixii halkan maanta ka dhacay oo shirka lagu soo gabagabeeyey iyo wixii ka baxay siduu cali baasha sheegay fariin bay u tahay qof kasta oo raba inuu dalka kan maal gashado gaar ahaan Puntland inuu maal gashado fariin aad u wanaagsan bay u tahay waxaan isleeyahay maalin dhow in dad badan soo yaacayaan oo kala guraan oo ka dhacayo marka wax caqabad ma jiraan caqabadaha waxa ka mid noqon kara amni ahaan waxa ka mid noqon kara fududeynta sharciyada maalgashiga waxyaalahaas oo dhan haddii ay caqabada ka soo baxaan ka dawlad ahaan door noocyo ayaad ka qaadan karaan haba yaraatee horta xagga sharciga wax caqabad ah oo qof raba dalka kan inuu maal gashaday raba wax caqabada oo xagga sharciga iyo xagga dawladnimada uga imanaysa madaxweynuhuna uu ballan qaaday golaha wasiiradana waa lagu xaqiijiyey xeerkii maalgelinta dalkana waa golaha wasiirada uu ka gudbay marka haba yaraatee wax caqabad oo xagga sharciga ah ka imanaysa ma jirto xagga nabadgelyada nabadgelyo aad u wanaagsan oo runtii aan isleeyahay tusaale bay u tahay geeska Afrika oo dhan baa Puntland ka jirta haddii la sheego meelo yar yar oo buura halkaas niman ay dad ku jiraan oo nabadgelyo xumo ka jirto habeen iyo maalin waa tagnaa nabadgelyo xumana ma aragno nintuuga oo iska dhuumanayo meel ku dhuumanaya oo adduunka dhan waa ka jirta Mareykanka oo ah dalka adduunka ugu xoog badan oo ugu dhaqaalaha badan daqiiqadii waxa dhigtay 200 qof baa la dilaa dalka kan marka waxaan leenahay Puntland waa nabadgelyo caqabad xagga nabadgelyada ah oo maanta looga boqo in dalka kan la maal gashadaa runtii ma jirto waa haddii ay jirtana waa la suulinayaa ma safilayo wax yaro very relative wax aad u yar oo laga yaabo inay 1% tahay oo meel lagu sheego intaasna waa ka aragnahay haddayba jirto ma jirto siyaasi cali baan u soo noqonayaa shaqo la'aanta guud gaar ahaan dhalinyarada aad bay dalkan u fara badan tahay maalgashigan iyo abuurka mashaariic shaqooyin ah door noocay ka qaadan karaan inay yaraato shaqo abuurka dhalinyarada aad iyo aad baa u mahadsan tahay waxaan ku celinayaa caqabadaha horta markii caqabado way jireen shirka intaan la qaban oo waxba ka mid ahaaba shirkan ma la qaban karaa oo waliba sida heerka sare ah ma lagu agaasimi karaa oo kale marka caqabado badan baa laga soo gudbay oo ay taasi ka mid ahayd oo ay ka mid ahayd Puntland inay shirkan qaban kadho inay dadka u yeeri kadho waliba waqti kooban oo 3 bilood in lagu qaban karo caqabada dhalinyarada iyo shaqo la'aanta waa arin Soomaaliya oo dhanba ka jirta waxa la yiraahdaa dhalinyarada shaqo gaadhay ilaa 60% ku dhawaad baan shaqo haynin taa macnaheedu maaha waddanku inuusan shaqo oolin waddanka shaqo badan baa taala waa dhageysanaysa shirkad yar oo dhawaan la asaasay ayaa waxay ka shaqaysiisay ilaa 7,000 oo darawal bay ka shaqaysiisay oo nin walba gaarigiisa la yimid oo 2,000 iyo 1,500 aan ka badnayn maantana wuxuu sameeyaa wax isagana ku filan waxna uga dhigmi karaan marka shaqadii waa jirtaa industriyadii iyo meelihii laga shaqayn lahaana waa jiraan laakiin waxaa jiray u diyaar garow la'aan marka shirkaani wuxuu taray horta inuu indhaha soo jeediyo fursadaha jira wuxuu kaloo taray in dhalinyaradu ay shaqo abuuri karaan oo iyagu shaqo bilaabi karaan oo iyaga loo shaqayn karo aysan ahayn markaas inay shaqeeyaan wuxuu soo saaray meelo fara badan oo laga faa'iideysan sida hadda hoteelada industriga la yiraahdo soo dhaweyntii hospitality-ga oo shaqaaleyn kara 100,000 oo dhalinyaro ah dalxiiska kamid ah oo dad fara badan shaqaaleyn kara in dawlad iyo shirkadaha waaweyn kaliya laga sugaahay waxaad moodaa in laga gudbahayo shirkaani waxyaaluhu abuuray waxa kamid ahaa dowrka dhalinyarada ee shaqo abuurka iyo waliba inay fursado fara badan waddankan ka jiraan dadka lala hadlaya ajnabi kaliya ma aha Soomaalida xoolaha haysato Afrika joogta oo nagala joogo Cali Baashi Soomaalida xoolaha haysato oo Mareykan iyo Yurub jira buu la hadlayaa ayagaana mudan marka hore inay dalkooda maal gashadaan ka bacdi dadka noo imaanaya ama noo kalsoonaanaya intaadan ka bixin ku darso su'aashii ahayd shaqo abuur dhalinyarada ay sameyn karto
iyo doorka ay ka qaadan karto in shaqo abuurka dhalinyarada dabcan saan hore u sheegayba macradkan oo kale uu ka qayb qaadanayaa oo wadankan dadka u badan waa dhalinyaro weeye waliba gabdhihii iyo ragga waxaa la gabdhaha ayaa sii badan waxyaalaha lagu ballan qaaday waxaa ka mid ah in loo sameeyo microfinance ama lacago yar yar oo mashaariic yar loo geliyay 5,000 4,000 10,000 dowladda Puntland waxay ballan qaaday inay abuurayso nidaam ay ku garanti garayso haddii shirkadaha iyo bangiyadu lacagta ay bixiyaan qofkii si xun u dhaqma oo dee la soo qaban waayo inay dowladdu qaadi doonto ta u dambaysa oo inay garanti ka noqon doonto waxaan qabaa inay fursad weyn arrinta u tahay waxa la cadeeyay gabdhuhu 99% lacagta ay qaateen oo microfinance inay soo celiyeen cidda laga baqaya waa dhalinyarada iyo dad la mid weeye ayagana dowladoodii baa u taagan oo tira annaga ayaa ku fargaraynayna waxa kale oo la sheegay in dadku fikrad cusub la yimaadaan oo qof alla wiil dhalinyaro ah baa u tagay dad ka mid ah dadkii wadanka yimid oo Chinese ah fikrad buu u geeyay arrintaa waxay keentay in mashruuciisi loo maalgeliyay maantana shirka laga sheegay ninka dhalinyarada inuu ku guuleystay mashruucaas inuu nin kale oo investor ah u maalgeliyo waxaan sugaynaa maaha dhaqaalena loo keeno waxaan rabnaa dhaqaalaha in la isku daro waxa la joint dowladda iyo shirkadaha dhexdooda oo mashaariicda la wada galo marka halka waxa ka soo baxay awareness balaaran dhalinyaradeenna fursad aad iyo aad u badan bay haysataa maanta cali baan soo noqonaa ganacsatada Soomaaliyeed inta badan adigu aad ka mid tahay oo ganacsiyada ku leh wadamada Afrika qaybo ka mid ah wadamada Carabta maxay tahay sababta ay dalka uga doorbidaan inay maal gashadaan oo ganacsiga ka furtaan inay wadamadaas kale ka furtaan waxaan hal mar taabanayaa arinta cali ka hadlay Dr. علي حاجي runtii bini aadamku hadda markii wax la xisaabinay maxaa haysanaa la leeyahay khayraad baa la yiraahdaa khayraadku waa laba nooc noocna waa khayraadka dabiiciga oo ilaahay ku abuuray dhulka sida kalluunka iyo malayga iyo macaadinta iyo xoolaha iyo geedaha wax la mid ah midna waa khayraadka bini aadanka oo la yiraahdo afka ingiriiska human resources dal ma horumari karo in la helo maaha human resources human resources dhalinyarada bay ka imaanaysaa oo shaqayn ka dhah dadku intay shaqayn karaan waa da'da u dhaxaysa 18 ilaa 55 waa dhalinyaro wixii ka weyn qof retire oo shaqadiisa hawlgabay weeyeen marka waxaan xoojinayaa in dhalinyarada horta xirfado loo sameeyo xirfada loo sameeynayaa kaliya maaha inay maaragtay ay computer garaacaan waa inay meelaha ay ka shaqeeyaan tusaale ahaan madaxweynaha waa kala hadlay markii anigu aan ka soo degay airportka hoolkii airportka nagu soo reey waxaan nin Pakistan oo rinjeynaya hoolkii airportka nin Pakistan rinjeynayay ninkaas markii eed ma laha oo ninkii Soomaaliga qandaraaska la siiyay la yimid dabcan waxa laga yaabaa finishing uu rabay inuusan qof u heli karin ama uu heli karana ay markaas soo ugu qabaneen qofku hadduu ganacsada yahay wixii markaas danta ugu dhameeyay ku shaqeynaya laakiin waxa la rabaa in la iska saaro mas'uuliyad ninkaas oo kale in la daba taago anigu wadanka aan ka Zambia oo kale hadii aad u cusubtid qof ajnabi ah barmad waxa lagu leeyahay 2 sano lagu siinayaa qofka ajnabiga ah laakiin shuruud ku xiran ugu yaraan 2 qof oo wadani ah waa inaad lacag yar oo maaragtay oo basraac wax siisaa si qofka ay u daba joogaan macna shaqaale lagu dhimayo inta shay wax la siinayaa oo maaragtay wax barid yar ah qofkii daba joogaya qofkii wax ka baranaya meelo badan oo dhismayaan soo arkay meelo badan beeraan tagay waxaan soo arkay meel walba oo ajnabi ka shaqeynayo for example beer weyn ma tagna xaga ku taala ninkii iska lahaa magac dhibi maayo ilaa waxa ka shaqeynaysa 14 qof baa ka ahaa wadani ama hadduu ahaado wadani ha ahaado reer Soomaaliya ama wadani reer Puntland dad badan oo aan dalkeen ahayn baa shaqeynay wax guriyay beeraha barta guriyay marka annagoo ganacsatada aan cambaaraynaynin haddana in dadkii la baro internship oo qofkaan qof hadduu ku lamaanayo ilaa wariya ka fiirso oo baro waa mid loo baahan yahay mana horumarayno haddii aynan helin human resources dad inoo horumarsan wax yaqaana dawladduna kulleeyday waa ay ka warqabtaa arrintaas haddaan u soo laqabteen u soo noqono ganacsatadu hadda meeshii horta nuxur ugu jiray u badanta Soomaaliya kuma maada rixin arkaysa rixin ma daydo haddana sacrifice baa loo baahan yahay dawladduna nooma yeerin niman loo yeerin ma imaado haddii hadda loo yeero waa nimid haddaan nimidna waxbaan ballan qaadna aniga kula hadlaya waxa muddo iga guuxay cali xaaji iga maqlay muddo iga guuxay bay hindhisada iga keentay
hindhisada haddii inta adu hordaasan qori lagaa geliyo hindhisaa tuuraysaa marka waa shaqaynaynaa ganacsatadu marka runtii waxyaabaha ay ku hadlay oo ka mid tahay deganaanshaha sharciga kala dambeynta haddii haatan propertigaaga iyo gaarka u leedahay ay dhawaad kaaga timaado in sharci iyo rule of law kaa kala reebayo qofkii ku qabsanaya meel cilaa oo howl cilaa oo waddanka Zambia ku yaala baadiyihiisa beera ku sameynaa dadka Zambiyaanka oo nagu hareeraysan iyagoo baahan qaba baysan dhawaateyn karin waayo sharci baa ka jira meesha kala hagaya annaguna xuquuqdooda iyo ma dhawaateyn karno sharci baan kula shaqeynaa markaas waxay keentay Zambia inay soo jiidato maalgeliyaal caalami Afrika iyo Asia Yurub iskaga imaaday adduunka dhanna waxa gudaha yaala kuma filla Mareykanku wuxuu u baahan yahay wax loo yaqaan foreign direct investment China aragtay wuxuu ku horumaray iyo Turki waa lacagta dibadda ka timaado oo ay wataan dadka dibadda ka imaanaya gudihii wuxuu yaalay Mareykan bay ku filan waayeen maxaa u malaysaa marka Puntland iyo Soomaaliya marka waxaan qabaa in dawladdu ay incentive badan samayso priority waddanka la siiyo oo wadaniinta ah waxa dibadda ka wata wax lagu taageero waana maasan tahay dadku markay imaanayaan haddii ay helaan rixim rimix ma laga yaabaa shirkani haddii uu soo gabagaboobay maantay wixii ka soo baxayna aad aragteen oo idinku aa qayb ka ahaydeen in maanta kadib ay idinku dhalato inaad go'aansataan inaad dalka timaadaan oo ganacsigiinu dalka u bato halkii awal wadamada ajaanibta u badnaa haddaba waa bilownay runtii rag baa bilaabay waa maqlis cali xaaji inuu yidhi dad baa shirkada seexay ragna waa bilaabeen anigu aan ku jiro rag badanna waa soo wacayeen ilaa maanta ilaa xalay ilaa shalay oo aan ka imid raggaygii ah marka waaba la bilaabayba laakiin waa in la joogtiyaa dawladdu hadba meesha wax ka soo baxaan ay fiirisaa hadba wax ku dadhaa hal mar laguma dhammayn karo maaragtay Mareykanka arkaysid iyo Yurub iyo Zambia maalin kasta waxba soo siyaadiyaa waxba la soo siyaadiyaa waxba la siyaadiyaa waxba laga saaraa waxba lagu daraa hadba xaaladda ku xiranta marka waa in la joogtiyaa maaragtay xagga dawladda waana maasanta waxaan soo noqonayaa cali xaaji waxaad hore u soo maamushay mid ka mid ah shirkadaha Puntland ka howlgala brefatka ah oo ganacsatada aan filayno in aad ugu dhundalooltid ma laga yaabaa ganacsadayaasha Soomaaliyeed ama sama la oran karaa inay u badan yihiin ganacsigoodu meelo gaar ah oo aysan inta badan xoog saarin waxyaalaha dalkeenu qaniga ku yahay sida beeraha deegaanka sida badda oo kala kalluumaysigayo horta ganacsiga sida la sheegay waa wax ballaaran weeye qofkana waxa laga yaabaa qof wuxuu fiirinayaa ribix degdeg inuu helo ومشاريع دقدق وقليا قف وحو كفكر يا وقت قدير مشاريع وحو كتلا قليا إنه وقت دير سوى لكن العقب بدن وهله أنا إندستريجا هذا أنكسر شغيو كله أو تلكوم كا أما إندستريجا إسكارسينتا وحو أساس وياه يود كان ملقش جيس هذا يصير نصر تقال هين إن شركة إن اللايف لقديقه oo mataqaana meel kasta la geeyo oo maaragtay aynaan haysan internet fast ah suurtagalba ma in shirkadii communication sameeyaan ama ay wada xiriiraan marka waa industry loo baahan yahay wasiir Cabdullaahi oo jooga baran ama jooga Jiriiban ama Gaalkacyo jooga ama Ayl joogaahi waxa uu u baahan yahay waxa weeye inuu wuxuu halka ka qabtay ka soo tabiyo marka horta shirkaduhu hadba meel bay aadi jireen hadda waxaad moodaa meelaha aad u muuqday waxa kamid in la xoojiyo telecomka waxa kamid in korontada arinta aad iyo aad baa loogu celceliyay waxa kamid ahaa arimaha hospitality-ga ama dhaqanka soo dhaweynta waxa la midka waxa aad iyo aad loo sheekay kalluumaysiga waxay u baahannahay magaalooyinkeena ugu qanisan dalkeena qaybta ugu qanisan Puntland oo xeebaha Hindiya iyo isku xira badda cas min Garacad ilaa iyo Laas Qoray waxa laga yaabaa inuu jid isku xira xataa uusan jirinin ama meelaha qaarkood caluula iyo xaafuun iyo hurdiya iyo xaaba iyo xataa inaan lagu gaari karinin maxaa yeelay xagga badda in loo marmayo bariga way adag tahay marka waxa la rabaa dawladdu inay halkaas gasho aad buu madaxweynuhu ugu mahadsan yahay wuxuu kala hadlay beesha caalamka war waxaana siinaysaa inta laga fiirsado waxaan wax ku qabsan lahayn nagala qabta jidka hadda ugu dheeraa oo Puntland isku xireeyay Garowe ilaa iyo Boosaaso ba damage roobkii uu soo gaarsiiyay marka runtii waa soo socdaan bilow fiican weeye waxa la yahay Roma maalin lama dhisinin meel fiican bay wax ka bilaabanayaan dawladdu dadka waa dhageysanaysaa aniga waxa aad ii soo jeeta runtii inay dawladdu ballan qaado inay ilaalinayso qofka ra'sumaalkiisa hadduu waddanka dib u gashanayo iyo hadduu waddanka kala baxayaba iyo inuu diyaar u tahay hadduu isagu galayo shaqada iyo hadduu cid kale oo Soomaaliya ee u dhiiban karo marka fursadahaas kulligood waa wada jiraan wasiir Cabdullaahi waxaan rabnaa in sida Cali uu sheegay
meelaha qaybtooda ay fogfog yihiin wadooyin loo baahan yahay waxyaalaha noocaas oo kale ah masalan bacidi maal gashanaysa si ay ugu fududaan maxaa dawladda uga qorshaysan waa mahadsan tahay isgaarsiinta xagga dhulka ah baad u malaynaa inaad ka hadlaysid isgaarsiinta xagga dhulka ah wax badan baa dawladda runtii uga qorshaysan saa u ogtahay haddaan ka soo qaadno xataa waddadan isku tashiga ah ee ceeldaahir ceergaabo waa waddo isku tashi oo ay shacabka Puntland iyagu ku tashadeen oo iyagu dhisanayaan waa ilaa 300 oo mitir ku dhawaad iyaga 300 kiiloomitir ku dhawaad shacabka Puntland baana samaysanaya haddana meel fiican bay maraysaa waxa laga yaabaa sanadka bilowgiisa in daamurkii lagu bilaabo hadda simidii iyo waxaas bilowda ta kale ee ka bilowda gaalkacyo ee u socota Garacad iyo Shariiban iyo xagga u socotay wadaagsin meel fiican bay maraysaa shacabku iyaga taana samaynaya Garowe iyo Eyl sidoo kale waxaan rajaynaynaa kuwa kale oo fara badan Garowe iyo Talax midaba jirta Sherbi iyo Xingalool midaba jirta waxaa jirta meelo badan oo ay dawladdu ugu tala gashay inay maaragtay isku xidhka dadweynaha iyo si ay u fududaato gaadhsiinta adeegga bulshada waxyaabo fara badan bay dawladdu ugu tala gashay oo ay ugu badan tahay isku tashiga shacabka Puntland aad bay arrintaas dawladdu u xoojisay waana ka qayb qaadanaynaa insha Allah dalka dhan ka qayb qaadanaya ganacsada cali waxaan rabaa inaan su'aasha ugu dambayso ku weydiiyo oo ah in dad aan shirkan ka soo qayb gasheen wixii ka soo baxayna aad maanta goobjoog u ahaydeen maxaad ku celin doontaan ganacsadayaashii aad uga soo tagteen dhulkaas oo reer Puntland ah maxaad ugu baaqi lahayd masha Allah hadii sida la sheegay live stream buu ahaa oo warka way naga hayaan warku waa naga horeeyaa hadda oo sidoo hore ma waagi hore qofka waa la waraysan jiray qofka yimaada laakiin hadda asaga loo warraba inta socday waxaan ugu baaqi lahaa inay maartay ay runtii ku soo ururiyaan wadankoodii ayna qayb ka noqdaan dib u dhiska iyo dib u habeynta dalkoodii waajibaad saaran weeye xagga diinta iyo xagga dalkaba marka fartiintaas waa saas weeye macaash kaliya idinku raadinin waliba macaashkiina waa jira ana laakiin sacrifice samaysaan oo qayb ka mid ah xoolaha aad wadanka soo celisaan iyo shaqadaba dadka wadanka ka soo wada baxayna sidoo kale siyaasi cali xaaji aan rabay inaan su'aashaada ugu dambeeyo ku weydiiyo waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta shirkan goobjooga u ahaa muddadii uu socday ee 3 bari ahayd ma dhihi kartaa dawladda iyo dadka reer Puntland maanta waxay diyaar u yihiin maalgashi ay samayn karaan ajaanibta iyo shirkadaha Soomaaliyeedba runtii aniga shirkan niyad weyn buu galiyay anoo wadanka joogay oo ka shaqaynayay oo maaragtay ka soo noqday ganacsade oo wasiir ka soo noqday haddana runtii shirkan sida loo ajiibay ama bulshada Puntland ganacsatadii dalka joogtay iyo kuwii dibadda joogay ee Soomaaliyeed iyo kuwii ajnabiga ahaaba siday muddo yar u ajiibeen runtii niyad weyn ayaa aniga ii gashay inay suurtagal tahay in Puntland fursadaha maanta la sheegay laga faa'iideysto waxa kale oo iyana meesha ku jirta Puntland waa dal aamina way meel kasta dib waa ka dhacaan laakiin Puntland aamin weeye meel kasta ka midana waa la maal gashan karaa waxa inta la socda dawladdii oo leh annaga diyaar u ah dadka inaan xoolahooda iyo xaqooda aan u ilaalino shirkadaha wixii ka dhumana oo waliba dhalinyarada ku saabsanna waxaan u samaynaynaa sanduuq gaar ah oo lagu maalgeliyo waxaan la sheeginin oo shirku intuu socday ee dhacday heshiisyo fara badan oo beesha caalamku ay ka mid tahay EU-da oo ah jidkii gaalkacyo Garowe dhaqaale loogu talagalay in la sii deynayo oo ay hadda EU diyaar u yihiin waxaan is leeyahay shirkaani indhaha caalamku soo jiitay dawladda federaalka xaadir bay ahayd wasiirkii waxa yimid planninka iyo international cooperationka waxa joogay xubno kale oo ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan filayaa in shirkan sidii loo meelanayo uu ka sareeyo ama meeshii la filay inuu gaaro meel ka fog inuu gaari doono aad baan dawladda ugu hambalyeynaya wasaaradda ganacsiga si gaar ah ugu hambalyeynaya madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa sida gaarka isaga xilqaameen oo 3 bari inoo dhex fadhiyeen waa u hambalyeynaya annagu bulshada hadda ka mid ahay anigu shacabkan ka mid ahay waxaanu diyaar u nahay inaanu dawladda kala shaqeyno sidii shirkaas loo dabageli lahaa waxaan ku soo xirayaa wax walba waxay ka bilowdaan in shirkaas wixii ka soo baxay la dabagalo dawladda waxaan kula talinayaa wasiir Cabdullaahi baa nagala jooga in la sameeyo guddi dabagala shirka wixii ka soo baxay haday ballanqaad tahay iyo haday xiriir tahay iyo haday maalgashi tahay si loo ogaado wax walba oo la yiraahdo inaysan halkaasi aysan ugu dhamaanayn in la daba soconayo aad baa u mahadsantahay wasiir Cabdullaahi gabagabadii doodeena
maxaad dhihi kardhaa shirkaasi muddadii 3 beri ahayd oo uu socday maanta oo soo gabagaboobay ganacsatada reer Puntland weji nooce ah ayaa hadda kadib laga fili karaa maadaama awal uu ganacsigooda u badnaa meelaha dibadda maxaa ugu baaqaysaa waxaa laga filayaa inay soo yaacaan inay soo yaacaanoo aanay aan leenahay waxaan leenahay dhaxalkii aabihiin aan ka qadina dalka kan maalgashi buu diyaar u yahay waa idin soo dhaweynayaa waa dalkiinnii waa dadkiinnii maalgashi buu diyaar u yahay wixii shirka ka soo baxayna waxay noqday wax lagu farxo ganacsatada reer Puntland iyo Soomaali iyo cid kasta oo dalka kan maalgashanaysa waxaa uga soo baxay aragti wanaagsan iyo muuqaal wanaagsan sida uu Cali Xaaji Warsame sheegay waxaan la filayn baa runtii shirkan ka soo baxay waxaan filayn ismaanaan lahayn muddada yarada inta lag baa waxaas ku dhacayaan laakiin Puntland waxay xaqiijisay oo halka aynu ka wada aragnay oo caalamka oo dhan uu ka marxaanti kacay shirka halka ka dhacay shirarka caalamiga ah ee maalgashiga caalamiga ah adduunyadu qabsato inuu la meel dhigmayay sida daraadeed ganacsiyada Puntland ay soo yaacayaan la idinka soo hormarin furshaduhu waa badan yihiin aad bay u tira badan yihiin intii halka lagu soo bandhigay oo kaliya maaha boqolaal iyo kumaan fursadood baa dalka ka bannaan kaalaya oo maalgashada yaan la idinka soo hormarin ha loo soo kala tartamaan ulana ha loo soo tartamo oo hala yimaado hal ganacsan waxa kale oo aan inta ku xoojinaya runtii wixii ka soo baxay waxay ahayd wax wanaagsan oo dadkii aad u soo jiitay si taa loo xaqiijiyo marka waxay u baahan tahay dawladdu in ay xaqiijiso wixii halka ka soo baxay in loo sameeyo cid daba gasha oo xaqiijisa inay rumowdo waana rajaynayaa insha Allah inay rumoobayso madaxweynihii baa joogay madaxweyne ku-xigeenka joogay oo Jorow joogay golay wasiirada joogay xildhibaanadii baa joogay dadka ganacsatada ah ee reer Puntland oo halkan fadhiyay baa joogay waxaan waa in la xaqiijiyaa wixii halka ka soo baxay dawladdu waa inay xaqiijisaa oo daba gashaa oo ay rumowdaa arrintaasi waana jecelahay inay rumowdo insha Allah waa tahay daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa dood gaar ah oo telefishinka Universal ka sameeyay waxyaalihii shirkani ka soo baxay oo muddo 3 bari ah ka socday magaalada Garowe ayna ka soo qayb galeen ganacsato iyo shirkado Soomaali ah iyo kuwa ajaaniba doodan waxa idin la socodsiinayaan oo Kayna Cabdi Jaamac waxa sidoo kale igala qayb galayay ganacsade Cali Bashiir oo ka yimi Zambia waxa sidoo kale igala qayb galayay siyaasi Cali Xaaji Warsame ahna wasiirka hore wasaaradda waxbarashada Puntland iyo wasiirka waxbarashada haatan dawladda Puntland Cabdullaahi Maxamed intaan doodan mid lamid ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo